هذا قارئ أضوي مصبحي ها وحلي هاي اعتراف كهدي أنجا إثيوبيا نسيسو أساسا اعتراف كهلا والأدون كلياب كجر وحوا حال وضن اعتراف كيسا مهرجلا والمية وحلي إثيوبيا ودل وين هذا اعتراف تانو ونسوك أن توصلت هاي اعتراف كوان راديني أن هدي أنجا إثيوبيا مركزي أبي أحمد واتم مغلس يري هدي اعتراف كأنجا أو مركزي أصل هرجلي وعروتي زهرجلي دونت مصبح مركز أبي أحمد عروتي سحيل قبطان منولي jawaabtu waa maya waa la yaab marka Muuse wuxuu ku kambeyn garanayaa in markaasi gabi ahaanba heshiiska dhow yahay la dhameystiri doono waana marka Abiy Ahmed carruurtiisa weynaadaan waa waxyaabaha ee markaasi la yaab ka noqday wuxuuna leeyahay hal ay doorto ictiraafku waan soo wadaa meel fiican oo maraya xaaladdu way isku toosan tahay in Soomaaliland horumar gaarsiin ay baraaro in dagaalka SSC qaatoon oo ku guuleysanay oo meel fiican maraya waa ka qorluud hadda ka diyaar garoobo ka socdo in xalay caalamkuna ixtiraaf ayo markaasi noo ogol yahay laakiin qolada xamar joogta noo diidan xaaladdeenu meel fiican ay maraysaa in qolooyinka ila tartamay wuxuu leeyahay ma ahan rag aan goobjoog u ah ama halgan ka soo qayb qaatay ama SNM ka tirsana laakiin wadada halganka aan shaqo ku leeyahay dhagta kaliya maqal oo kaga yahay marka la yaab ah Musabbix maanta inuu leeyahay in Somaliland waa in Ethiopia ay bataysa oo anaguna ixtiraaf aan helnaa ciidamadeeduna badda ay tagaan ciidamada Ethiopia waa inay badda tagaan oo leeyahay وكسي دراسة حسد ديس حالة ديس وكسي دراسة وحروة صومالي إثيوبيا ناس دجالن مصبح مع قرشيسة إن قداشيس على نولان واي وأنا وجد إن مصبح ونسيت تنجرأة إن عمر جماله جرى إلهه لكن يستيت تنجر مركاتها إن سياسة برنامج كسر حوالة معها وأنا هو جاب كنقطة وأنا عبادة ستة ودسكرافتها بعمر جاز بهدو إله كسي إن ماله رأسكم بحساب فيها marka Muuse wuxuu ku adkeysanaya in heshiisku dhaqan gali doono meel fiican oo marayo xaaladuna isku tusi doonto marka xaalad isku toosaysa ma jirto dadka reer Somaliland maanta de Muuse bixi doortaan way ka shalayn doonaan sababtoo waxay tahay dhibaatada uu soo marsiiyay ogiye meel fog ayuu la gaaray oo dhaweyn sababtoo dagaalka isii qaato ma la socotaa 700 qof la saacad ku dilay gumaysiga 15 sano ku hay dhibaatadii hadda goojacad oo markaasi 300 qof ay ku xiran tahay la saacad goojacad dadkii oo markaasi meedku kaga cararay hubka laga dhacay dhibaatadaas oo dhan Musabbix ilaa hadda wuxuu leeyahay maya sheekadu waa sii socon doontaa meel wanaagsan noo maraysa rajo fiican ah jirto kan ninka siyaasiga markuu codka ka rabo kaliya ayuu sidaas yiraahdaa marka kale waxa waxba kuma sheegayo markuu xilka ku fadhiisto wuxuu ku bilaabo dadka xarig iyo dhibaato ku bilaabo bishaar baan doo xiray wariyihii aan maxaa lahaa in sheegan Cabdi Maalik oo sanfalaa xiray maxamed abi aragto xildhibaan oo ka xisho wax sanada uu ku xiray maxaa waa aragtay ciidamada gacan libaax dhibaatadii dagaalka oo la galay iyo heerka la isla gaaray war xaaladu ma sahlana Musabbix hadii reer Somaliland doortaan dib iyo malakameed ay doorteen sababtoo u jeedaanba ninkan dib ku soo marsiyo u jeedaanba 7 sano oo joogo Somaliland halaagii dhibaatay burbur dhaqaalaha kama soo bixin marnaba waxaan dheelaa hadii shacabka reer Somaliland ay markaas codkooda siiyaan Muuse ayaga isdilay gacantooda ayaga isku toogtay Muuse iska daayano waa ninka markaas MU hadda arkayso lagu marsayo asoo ku soo celcelinayo cid meel uga qaadaysan aysan jirin waa inuu markaasi daba taagan yahay oo badda kale qaata leeyahay oo ciidamo keena leeyahay oo dhulkii la wareega leeyahay maanta qorlugudii la sacanad weerarka oo ku wada waa Ethiopian wata ciidamo Ethiopian oo markaas dhowr kun ka badan adreeska Somaliland loo geliyay ninka heerkaas gaaray rabo Ethiopian inuu ku qabsado nimanka la yiraahdo dhulbaante waa meel aad u dhimatay wax aad u xun hadda maanta dhihla ciidamada Somaliland qabsanay oo la sacanad iyo qabsala waxba la dhihla waa Somaliland waa Soomaaliba Soomaalida waa laga xaltami doonaa ama dagaal la isla sii gali doonaa ama si ay noqon doontaa laakiin maanta wuxuu wataa Ethiopian oo markaas dharkii Somaliland loo geliyay calanka Somaliland garabka looga qoray ayuu wataa meedadka wala kala garan waaya markay dhintaan dagaalka qorluud ka dhacay Ethiopian badan ku dhintay qofkii marka calanka Somaliland wataa waa ciidamada Somaliland iska leeyahay adoo u jeedada wajigiisa inuu sanay Soomaali ahayn marka waxaan dhihi lahaa Musabbix hadda doortaan reer Somaliland waad ka shalay doontaan dhibaato ayaana dareemi doontaan hadda Mareykanka waxa laga doortay Donald Trump dadku jecel uma qabaan laakiin haweeneydaas iyo waxyaabaha ay markaas dhaqan xumada ay faafinayso ayaa laga cararaya oo qanisnimada iyo ilmaha la iska tuurayo iyo waxyaabahaas xisbigeeda aaminsan yahay laga carara laakiin Donald Trump waa in badan jecelna uma qabaan waa ninka dadka muslimiinta nacab madowga nacab oo cimriga ah laakiin dibka jira waxay tahay haweeneyda asaga dhaamo si marka loo fiiriyo marka taas ay markaas xaaladdu ay isbedel u keentay oo marka asaga loo doortay marka Musabbix wax loo xilin karo mar Soomaaliland maanta wuxuu qabtay oo Musabbix loo xilin karo xil lagu dhibi karo ma jiro marnaba ma jiro sababtoo waxa soo qabtay kala sheegay hada ogtahay wuxuu qabtay noo soo sheego noo soo qor dagaalka la sacanad iyo waxa dhibaato aan ka ahayn iyo burbur aan ka ahayn
iyo dhibaato iyo heshiis MOU balaayo iyo Ethiopian lagu wareego iyo waxaan ahayn had 3 kun oo ciidan xaniban oo ku xaniban gudaha markaasi Ethiopia waxaan ugu xaniban yihiin tababar ayaa loo sameeyay tababarka Ethiopia markuu sameeyay lacag laga rabay lacagtina muuse bixi muusan dhiibin wuxuu rabaa marka doorashada galo hadduu ku guuleysto kadib inuu Ethiopia la macaamilo hadduu ku guuleysan waayna oo yiraahdo ciidamada salkaas jiraan ama ka raadsada ama iska daayay waa dhibaato marka waxaan dhihi lahaa haddaad reer Somaliland tihiin ha dooranina muuse bixi dhibka iyo dhibaatada uu soo geystay Ethiopia iyada hadda Soomaaliya usoo duuleyso oo dagaal ugu diyaar garowday oo dhees badiyaan qaadanayna oo dhees ciidamadana kama baxeeno oo 4 saac soo taagan shacabka dowladda deegaanka Soomaalida dhib ku qabo oo ay leeyihiin xuduud lama kala lahan waa inay qabiilaadku isdhex galaan oo leeyahay shacabka dowladda deegaanka Soomaalida waa in Oromada iyo Amxaaradu ay dhex degaan 50-50 wax walba inay noqdaan hadhow marka intaasna waa dhulkaadeen qaadana u jeedid waa taas ayaa laga cararayaa in Ethiopia lama soo dhaweysto shacabka dowladda deegaanka garanaya Ethiopia waxay tahay ayaga iska diiday nama soo dhex galeysaan yiri la dagaalamay 40 sano la dagaalamay haddana hadduu maanta uu leeyahay muuse bixi Ethiopia jaar qeyraadkeeda ka faa'iideysanayna Ethiopia xagga qeyraad ku haysa qeyraadka Ethiopia haysta degdeg barbaraad 17 ka siisay haddii oo rabo in wax kala soo dego ma kala soo dego ma rabo bad wax kala soo dego ma rabo bad oo qaato raba biixin marka adiga aqalgaada uu saas ku siiyay 8 jir maanta haddii uu ku siiyay aqalgaada in Ethiopia aad bad siiso ciidamadana ay tagaan maraakiibna ay keensadaan hadhowna baabalmada inta laga weeraro hadhow Soomaaliland la duqeeyo oo nimanka xoutiyiinta ku soo duqeeyaan aqalgaada meesha jiro ma fahmin aniga waana dareensanahay oo sababta aan ku sheegay leeyahay ninkan wuxuu rabaa gadaashiis in la noolaan reer Soomaaliland la tirtiro Soomaalida la tirtiro cid u sii noolaatay aysan jirin ka soo qaad laba markab ama doomi waaweyn oo casri ah keensadaan Ethiopia waxa ku wareejisay lacag lagu haye waxa la weeraray meesha la yiraahdo baabalmandab nimanka xoutiyiinta la weeraray gantaalada laga soo tuuro halkaasi si toos ah ugu dhacayaan meesha la Soomaaliland nimanka Israa'iil ka duqeynay Yemen maxay kula tahay in halkan ka duqeyn weynay aad u duqeynaa waliba dhulka ku daraya marka reer Somaliland muuse waxba ka daba dhigin muuse god ayuu ku wada Somaliland dad badan jiro oo dad leeyahay 8 jir ah oo Soomaaliya gadashood noolaan rabo muuse bixi Cabdiraxmaan Faroole iyo rag fara badan ka mid ah Axmedoobe iyo dad aad u fara badan waxa jiro oo 80 ku dhow ama markaas jiro oo aan rabin in gadashood la noolaado ay rabaan marka ayagu tagaan kadib cid wax Soomaaliya isqabsada ama noolaado inaysan jirin marka waxaan dhihi lahaa ha laga digtoonaado dhibaatadaas iyo xaaladaas hadda muuse u wado codkiina xasiinin reer Somaliland daatiin hadana waxay iska doorto waa ninkaas qoyar socodka ah heshiiskiina ka laabto diyaar u yahay reer la sacnad inuu madax dhigto raali geliyo diyaar u yahay waxyaabo badan oo markaas isku soo dhawaasho diyaar u yahay Soomaalidina isku laabto diyaar u yahay marka nin rajadaas iyo mustaqbalkaas leh oo Soomaalinimada doonayo ayaa idin dhaamo nin maanta Ethiopia idin dhiibay Somaliland waxa way Garowe iyo Muqdisho Amxaarka nabad ku noolaa iga ron Amxaar wiligiis nabad ugu noolaa wiligiis sababtoo hadda qabiilaadka la degan oo dagaal ku haya waa ka hadda Oromada leenayo oo ciidamada kale Ethiopia leenayo oo meel kasta waxaanay Amxaar gormo nabad qof kale noolaa wuxuu arkay wuxuu dilay wuxuu dhacay wuxuu ku fusado sameeyaa Amxaar nabad ugu noolaado taas ina faanta u baahantiin waana maasantii barnaamijkaas ku soo gabagabeynaa barnaamij shirkada meel fog gaarsiiya inta barnaamijka kulmi doono fi amaan